siduu walaalkii ka muujiyay waxaan la shaqeeyaa qaxootiga waxaan rabaa ururka inaan wax yar soo xasuusiyo dadaab inaan ku soo xasuusiyaa rabaa xere qaxooti weeyaan sidaa wada ogsoonahay oo Kenya ku taalo waxaa jiro ilmo ku dhashay ilmaha sii dhaleen ee ilmo kale sii dhaleen oo Kenya raacsaneen Soomaaliya raacsaneen oo meel raacsan yihiin la aqoonin ingiriiskana wuxuu ku wacan third generation oo Soomaali ah oo halka ku dhashay Soomaali badanna waxay ku dhinteen badaha saxarada qaarar badan baa xabsiyada ku xiran qaarar badan baa gabdho badan baa la heystaa oo xuduudo gudbi rabay niman kale iska guursaday waxyaalo badan ayaa ku soo waajahay qaxootinimada iyo dal la'aan iyo nabad la'aan noo keentay sidaa aawadeed haddii aad dadkii Soomaaliya u soo istaagteen waxaan jeclaan lahaa in dhammaanteennaba wixii Soomaali ah in ayay ka fikiraan nabadda iyo horumarka iyo waddan waxay tahay sababtoo waddan la'aan waxay noo keentay in aan meelaha ku dhimanno ay walaalaheen iyo dad badanna magacyadooda iyo jinsiyadooda iyo diintooda iyo wax walba ay ka lumaan soo waxaan dhihi lahaa anay muku ficina xisbiyada iyo waxyaalaha laakiin se inta dadka Soomaaliya u soo istaagteen ilaahay garabkiina ha galo waddankeena ilaahay ha noo celiyo ma aragti qaxootinimadaasna in aan ka baxno meesha ku dhalanay aan ku laabno aniga shakhsi ahaan hadda iska hadlo 20 sano Soomaaliya ka maqnaa waan sugayaa maalinta Soomaaliya ku laabto ciideeda shumiyo ininka nabadaasna keen kartiin raal noqda hadalka muku ficini intaas oo ku baxaya walaalaheen oo meel walba ku dhibaateysan hala soo xasuusto qaahira iyo meel walba joogan waa madsantiin Soomaaliyeed qaarkood waxa lagu sheegaa in ay si sharci darro ay u haysaan dadyow ma aragtay ku nool xuduudaha Sacuudi iyo Yemen marka taa waxay muujinaysaa qaran la'aanta iyo dawlad la'aanta Soomaaliya dib ka soo gaaray sidoo kale dad badan oo Soomaali ah ayaa waxa ay ku noqdeen dad ma aragtay mental handicap oo stresska iyo frustrationka inta uu ka batay ay ku nool wadamada Yurub iyo Waqooyiga America ayaa waxa ay noqdeen dad aan caadi ahayn maskaxaan aan fadhin sidoo kale caruurtii ayaga ku dhashay xeryaha qaxootida sida Kenya ayaguna waxa ay noqdeen bilaa mustaqbal intaas oo dhan waxay ka sugayaan waa dadka Soomaaliyeed aqoonyahanka iyo waliba xisbiga nabadda iyo horumarka waxaan ugu baaqaynaa guud ahaan dadka indhergaradka ah inay arrintaasi ay wax ka qabtaan bal haatan waxaan u yeerayaa dhawaan insha Allah gudoomiye بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا والسلام على مدح الناس سكوت من جماعة الدنيا يا أصحاب الجماعة أي والي مقلاو مالينا أولا أبارك للإخوة حزب التنمية والسلام والله لا حزبي التنمية والسلام مركرة مبروك بان لي حزبينا عصب قاهرة يمت رنانتي وان كبدا دركسن هاي أساق أخبارتيسا الشيخ يوسف نشرحي دمانتين وسفعنا متابعيني والله سعنا هل مدار بينا أني كترصد اختلاف الفكر وح الله هدانا سومالي وما بس فكر كأه إن أرى اسوي درسنا أما حزب أم دسنا أما قفك الرؤوس بست وحاسكوا سنة لبا حزب ديسو بستي لبدا حزبين عادوا اسكويين أما لبدا حزبين يسوير رايين أما لبدا حزبين أركت حنا أيوة كل دوان أدنا إني دنجود وح الله هبيراتي كدحين روحانتي وحن لي يعني أركت حن أحزبت ووسيلة ذاتنا ووضع الله مرة هدف لله هدف كنا ما حزبي هدف كنا
hadafkaan rabnay inaan wada gaarno waa danta guud ee naga wada dhexayso oo ah wadankii shacabkii ehelkii dadkeena maatada saa ugu adeegi lahayn saan wax ugu qaban lahayn saan ayagaan dhibkaan meel walba maatada ku ah saan oga saari lahayn laakiin anaga waxaa moodaa soomaali haddaan nahay xisbi kale markii laga kordhiso يعني حتى أفكار حتى مركان إسكو لبا أور كلا ديسنا إن فكرة كوكلا قديسنا دجال إسكو بدل صحيح فكرة كاس يعني ساعة صدر وحلا يجرين كما سوقات قاهرة كنا ولا قاهرة وحكي جرت يعني ضد كلا دينه كلا أفكاره كلا أور ساسي تا ودن جودا كده حس وحول بوسكو تنازلان أنا لكن صومال هركس إنا جرنا مودا عربت حتى هذا اختلاف الفكري لا يفسد ود القضية يعني فكر كل اسكو خلافه كما دغنا ان لبدا قف اي كلا تغان الهنا قران كيسا وحو كو شيغay ولو شاء الله ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين يعني مرنا لغما ياب ان ددك اميديسو مرنا لغما ياب لكن اهداف مشتركه جرت حد جير لغا ميدوبي كرو اهدافتاس oo mar walba loo baahan in anaga fiirno oo danta guud tusaale yar hadda waxaan sheegay yani iga dulqaata Israa'iil يعني وحكي جرتو وحلا حكومة ائتلافية حكومة عن حزبي بوحدة أنكو جولسن يعني أنا مركي حماس فتح قاهرة يكون على شيء كودي عذابتي أيوة كلا نوع كلا فكرة هالفكرة قاتين دنتو كود أمن قرن إسرائيل إنه خطر كجرو ما قرت أيوة كلا فكرة كلا أركته مركي أنا بسأل كأنا جارنا جعلان لاي وحول بانكار منا دنتو كود ما دام أنا هاي دل بربري ما دام أنا ضد باباي يعني دنتين جود وحول بينا كار من جعلان هاي تاسنا ومد جود هذا أنا ماشي عن كشة جعلان ولا ليال نسيبه ولا لها حزب التنمية والسلام حزب السلام والتنمية ده سرمري واسكمشي هذه هو فرح صنعي وحن جعلان لها إن كل جنبه يعني وليد عنق عصبة نقص بيرا الشيء بل أنا فيرنا وحكينا أن لا صعنا أن لا شقينا قفل بقى قاهرة جو حزب سوبس أما أورا لبعض وحنا كتلنا يا أفرت الروح شنت الروح أنت هشين كرتو يعني إني حزبي سوبس كويشيسا وفكرة فعلا لكن بشرط إنه قبيل كمريان بس عذر كاس أنا دبي عذر كاس أنسكو وردينا بس لكن تذكر إسكو أفكاره إسكو هدف إني حزب سلا سوبستان وأفكار يعني وح صمال هذا ما أنت كده عوجت طول اللان يعني مال والبودلان كوضع بعد تصلا كسر جنا هذه جار وما سنتين خطبة أنت نقول ديري روحانتي waxaan soo diyaarsan malay galabtadan imtixaan lahay waa taas u soo ليس سواك أخشاه وأعلم أن لي قدرا سألقاه صبرا يا بلدي صبرا يا بلدي صبرا يا بلدي معنا الله وسماء الوطن وسماء الوطن صرخت صبرا فطريقي من نيران والحور تنادي للرضوان أتذكر لما ودعتك يوما وبكيت علي من الإشفاق قلت يا ولدي لا تكوي كبدي تحرق للذكرى والأشواق ومضيت بعهدي وخرجت لبلدي ومضيت أقاتل في الأعداء في الجنة أحيو وأغني وأجدو وأرتل آيات القرآن وأقابل فيها صحبي وبنيها وأعاند مني والبلدان صبرا يا بلدي
صبرا يا بلدي معنا الله صبرا فطريقي صبرا فطريقي صبرا فطريقي من نيران. sidoo kale mabaadi'deena waxaa ka mid ah dawlad hufan oo muwaadiniintu ay la xisaabtami karaan taasoo micnaheedu yahay shacbu masdar sulutaat in shacbigu cid ay rabaan ayaga ay dooro karaan lana xisaabtami karaan qofka la doortay oo siyaasiga ama wasiir ha ama xildhibaan ha ahaadana uu yahay qof u adeegaya danta guud ee shacabka ee aan ugu adeegaynin dan urur gooniya ama xisbi gooniya ama qolo gooniya ama qabiil asagoo ku dhasho ku faanaya intaba marka shacabka ayaa marjic noo ah ujeedooyinka xisbiga haddaan usoo laabto sida aad la socotiin dhowr qodob ayaa ku qoran waraaqa hadda aad haydiin mar rab inaan ku dheereeyo 2 iyo 3 ayaan kasoo qaadan doonaa insha allahu waxaan doonaynaa in la helo maamul dowladeed oo ka hana qaada dalka Soomaaliya soona celiya midnimadii qaranka kala dambeyntii sharcigii iskaashigii iyo dowladnimadii shacbiga Soomaaliyeed sidoo kale in la dhowro xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed sida dantiisa noloshiisa sharaftiisa maalkiisa iyo aqligiisa si loo helo muwaadin guta waajibaadka saaran because qofka haddaadan ixtiraamin oodan siinin xuquuqda uu leeyahay ma ogaan karo waajibaadka saaran ee dalkiisa iyo dadkiisa intaba ay uga baahan yihiin sidoo kale in la helo dastuur joogto ah oo dalku yeesho xaqiijiyana nidaamka xisbiyada badan si talada dalka loola kala wadeego si nabadgelyo ku jirto oo xisbigii loo codeeyo ee ummadda Soomaaliyeed ay u arkaan inuu ka turjumayo ahdaaftooda oo talada dalka uu qabto muhiim ah in xisbiga nabad iyo horumarka uu qabto laakiin ay xisbi siyaasadeed oo dalka qabta diyaar ayaan anagu inaan la shaqeyno ummadda Soomaaliyeed haday hadda u arkaan inuu hogaamiyo ama hoggaan uu noqdo xisbiga nabadda iyo horumarkana diyaar ayaan nahay insha Allah mas'uuliyadaas inaan ka soo baxno sidoo kale horumarinta dhalinyarada haweenka dhallaanka daryeelka qoyska agoonta iyo naafada sidoo kale waxay ka mid tahay ujeedooyinka aan u dhisanahay waxaa kaloo ka mid ah ugu dambeeya ujeedooyinka qodobka ugu dambeeya in la dhiirigeliyo ka qayb qaadashada ama ka qaybgalka qurba joogta ayaha siyaasadda Soomaaliya door weyn ay ku leeyihiin dadka qurbaha jooga ee wax bartay inay dalkoodii inta u laabtaan dadkoodii iyo dalkoodii waajibka ka saaran ay gutaan oo ummadaas dhibaataysan iyo dalkooda daaqada ka sii baxay intaba sidii u badbaadi lahaan ay ka tashadaan sidoo kale waxaa jira barnaamij siyaasadeed oo xisbiga uu leeyahay oo ka hadlaya dawladnimada sidoo kale ka hadlaya ammaanka iyo cadaaladda sidoo kale ka hadlaya doorka diinta dhaqaalaha caafimaadka waxbarashada hidaha iyo fanka iyo suugaanta dhalinyarada iyo sportiska wax barashada xuquuqda aadanaha qaxootiga iyo qurba joogta iyo arrimaha dibadda intaba waxay ku faahfaahsan yihiin oo qofku uu ka booqan karaa website ka hoos ku qoran ama se Facebook xisbiga uu leeyahay xisbiga nabad iyo horumarka hadduu galo magacaas oo ku qoran Facebook uu soo baxaya ujeedooyinka mabaadi'da xisbiga halkaas ay ku xisan yihiin iyo barnaamijka siyaasadeed ee qodobadan aan soo sheegnay dhammaantood ka wada hadlay sidoo kale haddaad booqatid mowqaca xisbiga ee xisbiga nabadda.org sidoo kale waxaad ka helaya waxyaabaha aan soo sheegnay iyo in ka badan oo aad u faahfaahsan sidoo kale email ayaa jira xisbiga uu leeyahay xisbiga nabadda _egypt@hotmail.com oo ah xarunta xisbiga ee dalka Masar haddaad soo dirtiin oo qofku email uu soo diro waa u suuragal inaan u soo dirno barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga ahdaaftiisa qaab dhismeedkiisa iyo dhammaan waxyaabaha quseeya xisbiga intaas haddaan uga gudbo waxyaabaha quseeya xisbiga qodobka labaad oo rabo inaan ka dhawaajiyo waxay tahay si aad la socotiin Soomaaliya 20kii sano ee la soo dhaafo halkaas dhigood aragteen waa qabyaalad iyo dadkii Soomaaliyeed oo qolo la iskugu diro laakiin falillaahi alxamdu 20 sano kadib waxaad moodaa ummadda Soomaaliyeed inteeda badan inay fahantay maslaxadeedu waxay ku jirto waxaa la ogaaday nin wasiira ee qabiil ama hab qabyaaladaysan lagu soo xulo ama xildhibaan lagu soo doorto nidaamkan haddeertan loo bixiyo 4.5 oo qabyaaladii iyo si cad u qeexan ah in uu ummadda Soomaaliyeed inta horbooda uu yiraahdo ummadda Soomaaliyeed aniga ayaa matalay taas oo dhacda in wasiirka ama xildhibaanka ma ixtiraamina inay ku jiraan kuwa aad u wanaagsan in dantiisi gaarka ahayd oo ka hormariyo tii guud ee ummadda Soomaaliyeed ay lahayd sidoo kale waxaa dhacda in danta qolada uu ka soo jeedo ama qoyskiisa uu ka hormariyo tii caamka ahayd oo ummadda Soomaaliyeed u taal taasuna waxna soo dishaday oo maanta meesha aan la dhiga xaqiiqatan waxaan leenahay marka qabiil wax lagu soo xulo ama qabyaalad lagu soo xulo waxa badiil u noqon kara maantay axzaab siyaasadeed ee dalka laga hirgeliyo ee ummadda Soomaaliyeed ay ugu codeeyaan barnaamijka siyaasadeed oo wato ilaa xisbi qabiil ma matalay barnaamij siyaasadeed ayuu matalay
taas oo ka turjumayda raqabaadka shacbiga Soomaaliyeed isla markaasna u suura gelinayda shacbigu inay la xisaabtamaan xisbigii ay doorteen oo ayagu codkooda ku doorteen haddii uu ka soo bixi waayo waajibaadkii iyo barnaamijkii siyaasadeed oo qeexay in ay la xisaabtamaan taasna waa waxa maanta uu taagan yahay xisbiga nabadda iyo horumarka sidoo kale waxaa meesha ka baxaya markii la helo axsaab siyaasadeed isku soo taagta masraxa siyaasadda dadkiina raqabaadkoodii ka turjunta qabyaaladii ay adeegsan jireen siyaasiyiinta Soomaalida lagu yaqaan inteeda badan oo ah in ninka siyaasiga markuu doonayo masrax siyaasadeed inuu soo karo qabiilkiisa inta qori u dhibo uu yiraahdo qabiil hebel ku duula ee markay ku duulaan oo dad soo laayaan ku inay weerar soo qaadaan oo yiraahdo ninka kaliya idin badbaadi kara waa aniga si markaan idin badbaadiyo waa inaad taageertiin isla markaasna dadkii ayagiyo ku qasbanona furoweyta ay tahay inay ku daba faylaan ninkii taasuna marka meesha ayay ka baxee in masraxii siyaasadda lagu soo galo qori iyo dhiig la daadiyo waxa aan doonaynana ay too badiil taas u noqon kara in masraxa siyaasadda lagu soo galo barnaamij siyaasadeed oo ahdaaf siyaasadeed axsaab leeyihiin ay ka turjumaydo ummadda Soomaaliyeedna meeshii u arkaan xalka iyo dantu inay ugu jirto ay u codeeyaan qodobka saddexaad oo ugu dambeeya oo rabo inaan soo gunaanudo sida aad la socoteen ana waxaan xisbi siyaasadeed Soomaaliyana waxyaabihii ka jiray sagaalkii bisha wixii ka dambeeyay oo ummadda Soomaaliyeed ay ugu yeereen kacaanka shacabka Soomaaliyeed ee 9 Juun waxaa dhici karta dadku inay yiraahdaan taageeri maayaan dawladda ama xukuumadda xilligan uu hogaaminayo Ra'iisul Wasaare Farmaajo maadaama xisbi siyaasadeed ay yihiin suuragal inay dhaliilaan ceebahooda sheegaan yiraahdaan ninkan ummadda